أنا أول شديدني هونوي أفكوبات سماه إشي ذلك أرقتا أنا أول شديدني هونوي أفكوبات سماه إشي ذلك أرقتا وسأرقتي كامغن أم باقاد كانوا لشوي وسأرقتي كامغن أم باقاد كانوا لشوي مانيقا إلا وشدو ما ديقاني يا منيني dayax waayo magacayga saddexan waxa weeyaan maxamed cabdirasaaq jaamac loo garanog yahay dayax jacaylku sir ma leeyahay horta jacaylku sir ma laha ma jeceshahay qofkaad jeceshay inay ku xidho haddayna ka badbadisaanay noqon waayo ka badbadiska dadka shacabka unbaa ka badbadiyo maxaad u diraysaa fariin dadka isjecel marka waxaan leeyahay alla cimrigiina ha raajiyo dhammaan ummadda isjecel oo dhan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحكنا نقول سعوتها وارد وأنا أركا إن كل صاد يوم صاركتي وبرنامجكي ومحج عالكم إن كل ما أنت ولا الكي تيح ومركي كواد أيتين وشان كي قصة موضوع عندي المعنى وبالله بدو خاصة نسكن غنا عادي ويان محمد بدل يقول شان كسر دوي ورت بالله كسر دوي aad iyo aad badan maasantay walaalka rabaan arka ku dhaw YouTube channelka oo ka faraxsanayna barnaamijka soo qayb أدبل تيح مع سنتي كل دتك بدن كو تيح مو يقارن أنت كل أنا ما قاعد أستحمل كرنيه بالشدة أنت هنكو كرني إسمع magacayga saddexan waxa weeyaan maxamed cabdirasaaq jaamac loo garanog yahay dayax محمد ديح كل محد وين مغلى إنه تك aad إن ما قعدت استحنا ود نجاح maxamed سنة cabdirasaaq jaamac إن محمد كل برامج كرتو حويان وما حد جعله كل بقف سوارك هذا جعله كرتو من نوعه تذكر يروى عسام بالله يابني يوم إذا كل شيء هذا وانا ما جعله بدي في سؤال ما عرفته والله jacaylka kulli jacaylka ka faalon kari maayo wali waa noo dhiman yahay midabkiisa iyo tixraaciisaan يا وليس ha laakiin jacaylku meelo fara badan iyo siyaabo kala fara badan baa loo sheegay jacaylku waa dareen laba qof dhexmara ha noqdo mid walaaltinimo ha noqdo mid saaxiibtinimo ha noqdo mid xidhiidhaba oo mustaqbal iyo guul hadhow ku dambeeya laakiin anu jacaylku waa dareen laba qof ka dhexeeya ayaan aaminsanay أوكي هذا جعله حلم بلا ما سلده ما لبقى في سرشة كسنية ما لبقى في إن بدون هاللي بس يقول كبعد بي ماذا horta nabigeena tahay noo sheegay calayhi salaatu wasalaam axubu bacda zawaaji waxaa micnaheeduna tahay jacaylku wuxuu imaadaa guurka dabdi way jiraan dad yidhaahda guurka horti u imaadaa koley taasina waa nabiga inoo sheegay tan kalena dee dadka arkay ayaa inoo sheegay dee dadkan guursan waayo maadaama dhalinyaro nahay guurkii maadaama aynaan arag wixiinaan maqalno la yidhi jacaylka dhabti wuxuu imaadaa guurka dabadi taa aan in yar yara sifeeyo sababtu ay tahay waxaa laga yaabaa marka la sheekeysanayo in horta jacaylku sir ma laha shayga sirta la yidhaahdo haba yaraatee ma laha waayo qof walibaaba maanta marxaladdu ku sugan yahay markuu la wadaago qofka u khaaska jacaylkii sir ma yeelanayo oo waayo labadii qof waxay noqonayaan laba qof oo isku dhuun daloolo isku meel quraati wada jooga iyagoo laga yaabaaba inaanay isku dhoweyn kala magaalo ay joogaan oo kala fog yihiin hase ahaatee haddana ay wax walba og yihiin oo iska warhayaan markan guurka dabadii uu yimaadaa la leeyahayna wax kala maaha ayaan is odhan karaya waayo nolol qurux badan farxadda faraha badan leh qoyskii oo dhisan weyaan jacaylku marka waa jacayl laba jir beermay xaggaasina xaggan kalena odhan maayo jacayl ma jiro waa kan labada qof waxay isku xulanayaan waa jacayl iyo kalgacal iyo muxibbadii أدب محمد ماتي قفكم مركو قف ما دركتي وشلانيو أم بو درين وقاضي وحيالا قارب كدورتا أديك محمد كأهان
qof maanta haddaad jeclaan lahayd dooqaaga muxuu ahaan lahaa waa su-aal aad iyo aad u fiican su-aalihii kale kasoo yara dhadhow hase ahaatee dadkeena daawanaysa waxaad qofka ku dooranayso qofka isla hadashaada aad ku tiraalinta mamayda ay arrinkaasi ma jirto maanta horta dadkayna daawanaya markaad su-aashay weydiisay su-aal jawaabo fara badan ba ka dhex guuxay waxaa la is odhanayaa xulashada oo ka sheekeynaya ma qaabkeeda ma quruxda ma marka anyway qofka bini-aadankii horta qaabka ilaahay baa sameeya dabcan wuxuu bini-aadan shaqo ku leeyahay ma keliya in qofka shaksiyadiisa kalsoonida daacadnimada in aad qofka kula degenaan karayso oo intaa laga helayo ayaa wax walba ka muhiimsan anigu maanta qurux waa la helaa lacag waa la helaa wax walba waa la helaa qalbi wanaagsan kalsooniya daacadnimo aad bay yartay in la helo xulashadayduna waa ta kale siyaashaad soo kabatay meelo kalen ka filayay iyo ninka waxu calaaraya gabadha madayo gabadha cali ku doonay isla aad iyo aad sidii baan ku kala qaadi lahaa gabadh dheer gabadh noocaas qof wanaagsan markaad ka timaado majaasha gabadhaad inay ka adkaato horta adayg inay gabadhu ka adkaato dabcan horta ceeb maaha rag ban wuxuu sheegayaa ceeb maaha ragga moodaya inay gabadhooda ka adagtay horta waxna waa ku dardaro waa ka badbadis beri baa waxa dhacday sheekeer baa marka anigoo aad u daayar baan maqlay waxa dhacday reer jaarkeyga ayaabaa ways qabeen lamaanay hayeen kadib waxaa ka yara go-aan badnay gabadha oo wax walba dee goyn jirto oo oran jirtay saasi saasaa la sameynaya dabcan ninkunuu ku raaci jiray dadku waxay werin jireen wax kale ma ahayn gabadhaa dirta gabadhuu ka baqaa gabadhaasaan tiraada horta run ahaantii markan gabadhaada maad ka baqataa marka lagu leeyahay ixtiraam baqdintu inta laysoo rimaado laysma dilo laakiin shayga ixtiraamka la yidhahdo waa shayga adduunka ugu qaalisan gabadhaan maanta aanu mustaqbal la wadaagaye oorideeda ay noqonaysa haddii la haydhaa ixtiraamkan anugu qabo dee waa ixtiraam aad iyo aad u weyn gabadhayduna dee meeshay iga taagan tahay oo meel aad iyo aad u weyn oo horta dee meeshu dilma yaallo oo laysma dilayo laakiin markaad ka amar qaadanaysid oo aad wax isweydiinaysaa qofku intii loogu talagalay hadduu ka badaya mar waa qasab way isku guursateen inaad wax isweydiisaan inaad kala amar qaadataan way isku guursateen inaad isxog waraysataan way isku guursateen dabcan haddaan idhaahdo keligii baa talinaya waxaa laga yaabaa in uu aroos ama guurkaygaas uu baabo waxaan ku hubaa 99% guurarka maanta jira inay dumarku taliyaan sababtoo ah waa guurarka ugu adag ee aanu furnayn ku iman sababtuna wax kala maaha ixtiraamku hadduu maanta bato labadii qofi waxay noqonayaan aad bay u dhisnaanayaan marka ani ahaantay haddayna ka badbadisaanay noqon waayo ka badbadiska dadka shacabka unbaa ka badbadiyo maanta sheeko kaloo iyadana aan kugu lifaaqo kugu sii daray boqor baa guursaday gabadh kadibna boqorkii baa gabadhiisii u sheegay wuxuu ku yidhi habeenkii waxaan dhalaa hal beeda ya gabadhii baa waxay u sheegtay walaasheedoo ninkan lay guuriyey hadda waa boqorkii magaalada ninkan lay guuriyey wuxuu dhalaa waxay tiri hal beeduu dhalaa waa walaasheed la dhalatay dee dadka wada dhashay qof walibaaba saaxiib buu leeyahay gabadhii saaxiibadeed ba u tagtay walaashii ninka qaba boqorka magaalada hadda wuxuu dhalaa hal beeda 3 jeerba hal beeda maqashay gabadhii saaxiibadeed ha sii qaado inan kale saaxiibadeed ha u sheegto ha tidhaahdo
niyow haddaad imika tidhaahdo boqorku wuxuu dhalaa hal beeda micna samayn mayso laakiin boqorku 2 beed u dhalaa arday eeg sheekadii waa la macaanaynaya boqorkii 2 beed u dhalaa sidii u socotay sheekadu waxaa kusoo noqotay boqorkii bishii wuxuu dhalaa 50 beeda ya marka wax kalena sheekada uma soo qaadanayo kulay bulshada unbaa wax buunbuunaysa gurigu reerkuna waxa ku dhismaa kalsoonida iyo is-ixtiraamka muhiimadiiba ah maray ka badbadin noqoto iyo maray noqoto nasteexo qofkiiba marka nasteexa xitaa hadday dadka qaar baa xitaa khalad u arkaan kale horta shakeer baan jeclaan inaan kuu sheego oo ah nin bay ku dhacday marka isaga iga sheekanayay waxay ahayd gabadh buu qabay كلين داون أنا كسلاني هذه سوق الداون وين يدنا داون تلاقي طبعا ها واحد جتوت كل شيء هذا أنت دموس كتير دونا وواحد قف خصية ويا لكن أنت هراين نير وذاك دونا قبل بوقبي نكنا نحوا رجع سيق إلى بطنا بركها وحسمين تري ما لا أي دمر قيلة إيه واحد كتير تري أظن قبل والله قدر واحد يقول نكى ما لا حال كانوا دمر قيلة يحب تكا يعني meeshan waa halka gabadhi jiq bay iska dhigtay ninkan anta nin wuxuu aad u maskax badan maalinta shaqada sheegay ilaa saacad ma qoslay gabadhi waxa lagu ninku ilaa 8 meelaha soo qeylaan fadhiista waa runtii 8 buqaadkiisa wixii isaga wato meesh yimi laba hablood buu dhexdo galay barti buqaadkiisa dhigtay islaantiisii waxa soo gashay aadmado dhagax la tooray shimada soo gelisay way aragtay ninkii ilaa waxa waday daha ninkii taqsiintu inta marayso meel macaan iska jirada hay markay shaqada inta marayso waxaan ka sugay waan naxay sida aan noqday waxaan noqday ninkuu qoslay waxaan soo socdo wuxuu igu markii maskaxdiisa kelmadda seefta dhigtay ha qaadkii muuqaato u baxo uu ku ri adoo dalkaaga wato cidii ka sii kala hay way fajacday maana tahay leedahay ma saasa jirto aa u qalqalisa wata tiray wuxuu ku ri iyo bartan adigan ku fadhiyay haddaad adu qaadka cunto meelaha ku dhuumato waxaad ii oran leed qaadkayga soo qaado gurigayga marta qofkan u fadhiyo aad hayo adiga soo galay ana nooniga ka soo kacay meeshi marka ninkan muhiimad meeshu ku tago waxaad u yiri inaad adigu ku qeysha la sheegay oo waxaan doonayay inaan adiga xogtaada ogaado soo gasho sax aan malaha keenay wuri ma soo gasho meesha ma soo galin meesha arki talk maalinta bay gaadhay wuri iyo gabadhaas anu qaadkayga wala igoogi inaan ka qarsadaan ma jiro igoog ma ha cid kasta way igoogtay gabadheed waxa ku maqlayna qeysho bartaa ku qeysho meeshii baan tagay dawa been had tiraado iyadoo la leeso soo galay taas shakadaas waxa shaka aad iga qasrisay aadiya kulay dayax had u dir leed fariimo dadka jecel dadka jecel horta dadka jecel fariimo way farabadeen لا يهرت مركب كوبادة ندعينيه الله يسمى كراجيو فرينت كلام ندري يعني وحنسلي جعلكو وشيء كلية تدون كسارة يعطينا نستيح هذا مركب لقي ما دو ويجنا نستيح تذكر أرانا يعني محد وحي لودي جنا عدين تها مركب لقي ما عطينا صلاة يصوم ويجي ورنبا نستيحة عطينا جعلكو لكن ما مارميو تجعل بوا حلو نولي مركا waxaan leey alla cimrigiina haraajiyo dhamaan umada isticmaaloodan kulli barnaamijka guntiga gudisha soo kadhnay iska soo gabagabayn doona barnaamijka waxa lagu soo gogaaday qofka haduu hal su'aal wax dooni weydiiya hal su'aal hayso ma jeclaan inaad weydiiso mise maskax adiga ha ma saygu tiraay ما دقيت هذه أنا سؤالي ويدي سؤال قبل برنامجك ها وح بريف نعطي تمسك قرصنا وحاول نحسن وحده إمي كباه هذا كشرسين هذا يويديها يقوله أي والله سؤال شا ونقص حريه برنامج يويدي وين ود مغلسان أصحابي ود مغلسان أرتها ورنو كشرتاي واحد يشك وسؤال مركز تلاقى مير كوري اك وانت انو مبان امي كاga ama fa furo la hawlay ama kasi kam waxaad sheegaysaa waqtiga saxda garansa dalatay jirbaatay u sheegay saacada niyortu ma weyn
garhkana saaxiib waa hidda waxaan ku Waxay sheegay ku meeraysan taariikhda saxda asxaabta u sheeg adigu jiga horta maksaa eegto bal qiyaas anoo kuu sheegaya Ha ku waa meeraysan. khasab laakiin Ha ku adigu qiyaas way yar qiyaasta anoo waxaan ku khasab qiyaaso oo kunti baan dhamaynaya odhanaya haddaan doono way caadi qiyaas adigu qorta si daacada anu haddaan ku qiyaaso kunti jir baan ku odhanaya waa qiyaastayda ugu dambeysay ay saaxiib isma fogeynee xilligan dhashay waa horaan kugu sheego kuri horaan kugu sheego kuri imika ba inaan hay khasaare 69 saax 69 barnaamijkan wax inaga xidhay inkastoo aanan 69 oo aad ku inta leedahay soo xisaabsada Allah waxaan ku darsaday kaliya la